casharada soo gudbintiisa waxaa gacan weyn ka geysatay xarunta Bafo ee magaalada Muqdisho. Adeegyada ay xaruntu ku qabanaysa ayaa waxaa kamid ah in ay tababaro joogto ah ay siiso shaqaalaha shirkadaha iyo waliba ardada jaamacadaha ka soo qalin jabiya. adeegyada kale ee xarunta qabanaysa ayaa waxaa kamid ah in ay u sameyso xisaabaadka shirkadaha, sidoo kale inay qaladaadka ka saarto xisaabaadkooda, in ay u sameyso xisaab xir sanadkii, iyo sidoo kale inay u diyaariso riboorada ama warbixinada muhiimka ah oo ay u baahan yihiin dadka maalgashada iyadoo la isticmaalayo programmada accounting-ka oo ay kamid yihiin QuickBooks, Bistreega, Tally-ga, Dagiziga, Excel-ka iyo wixii lamid ah. Haddaba ha mogaan xarunta Bafo ee magaalada Muqdisho ama nagala soo xiriir taleefanka shaashada hortaada ka muuqdo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو عنتر سيد حسين وحن كترسنا حرونتا بافو مقالة مقدشو وحن نجلس وحرير كتاب تلافي شاشة دورتا هذا كم موضوع. maanta casharkeen waxaan ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo sidii aan u abuuri lahayn company cusub. bacdama aan rabnay inaan isticmaalno programka Bistreega, waxaan ku qasbanahay marka ugu horeyso company cusub profile-kiisa inaan abuurno. company-gaas markii aan abuurno ayaan waxaan hadhow geli doonaa haddii la yiraahdo datadii amba transaction-kii dhacay si aan ugu dambeyntii aan u helno wax loo yaqaano financial statement amba warbixinada muhiimka ah shirkadda qaab socodkeeda. marka programka aad soo kiciysid sida caadiga ah wuxuu ku soo boodayaa daaqadan laba amar ayaa ku yaal. amarka hore wuxuu sheegayaa in aan furno company hore u jiray. dabcan anaga company-geena ma jiro, hadda ayaan rabnaa inaan abuurno qaybtan labaad oo ah amba daaqada labaad amba buttonkan labaad ayaa wuxuu noqonayaa marka kaan isticmaaleyno uu sheegayo in aan abuurno company cusub. buttonkaas haddii aan hal mar aan riixno waxaa soo boodayo qayb yar oo hordhaca. qaybtan dabcan islaantan waxay rabnaa in aan ka jawaabno shantan su'aal meesha ku qoran. shantan su'aal guda ayuu ku jiraa oo si caadi ayaan u tagaynaa. intaa waxa ka dambeeya next ayaan leenahay. waxaan dooran doonaa haddii la yiraahdo productiga amba nooca aan rabno in aan ka isticmaalno Bistreega meeshan saa ujeedid noocyo badan ayaa ku jiro. noocan ka isticmaalayna ayuu sheegaya. dabcan noocyada oo ku wada jiro qaab ahaan isku wada mid waaye, kaliya meelo yar ayay ku kala duwan yihiin. ka qaadanayna wuxuu noqonayaa marka premium-ka. intaa waxa ka dambeeya next ayaan leenahay. inta marka waxaan ku qoraynaa faahfaahinta company-ga aan rabno in aan abuurno. saa dareemaysid qaybta ugu sareysa oo ah company name-ka waxaan ku sheegi doonaa company-ga aan xisaabaadkiisa aan rabno in aan ugu shaqeyno magaciisa ayaan meesha ku qoraynaa oo ka soo qaad waxaan leenahay Bafo company ayaan leenahay. saa dareemaysid calaamad asterisk ayaa kor ugu taalo. qaybtan sare wuxuu ku sheegaa marka in uu fieldigan amba magaca company-ga uu yahay wax muhiim ah oo aadan ka tagi karin, oo haddii aan isku dayno inaan company-geena magaciisa aan ka tagno oo aan next dhahno laakiin information-ka intiisa kale aan buubuuxino wuxuu sameynayaa marka inuu diido bacdama oo suurtagal ahayn in aad xisaabaad u sameysid shirkad magaceeda aanba la aqoonin amba magac la-aan. marka wuxuu noqonayaa inaan company-ga magaciisa aan u sheegno. labadan line amba labadan field waxaa loogu talagalay marka in aan addresskiisa aan ku qorno. haddii aan dhahno ka soo qaadba near Dahabshiil Bank, aan dhahno Bakaro Market, intaas haddii aan kusoo gaabino magaalada waxay noqonaysaa marka Muqdisho waa meesha hadda aan joogo. state-ka wuxuu noqonayaa marka Banaadir. sidoo kale zip-ka waxaan leenahay 252 waa nambarka lagu soo galo wadanka wuxuu noqonayaa Soomaaliya waa wadanka aan ku noolnahay amba company-gan uu ka furan yahay. taleefankiisa waxaan leenahay marka taleefanka waxaan gelinaynaa xarunta. fax hadduu jiro faxkiisa ayaan ku qoraynaa. inta waxaa ku yaal marka nooca company-ga uu yahay wax loo yaqaano business type-ka. dadka xisaabaadka soo bartay si fiican ayay u yaqaanaan. saddex nooc ayaa ugu caansan: sole proprietorship, partnership iyo corporation. dabcan saddexdooda hadda faahfaahin badan kama bixinayo, laakiin haddii aad u baahan tahay inaa mid kastaba wuxuu yahay faa'iidooyinkiisa iyo khasaarooyinkiisa aad rabtid inaa ogaatid, dabcan xarunta ayaa mar igu soo booqan doonta haddii la yiraahdo. kan qaadanayna marka wuxuu noqonayaa sole proprietorship. sole proprietorship waa company uu leeyahay hal qof. company-gaas oo dabcan qofkaas uu yahay qofka faa'iidadii khasaaradaba qaadanayo. dabcan faa'iidooyin ayuu leeyahay isla markaasna khasaarooyin ayuu leeyahay. haddii aan marka meesha uga soo tagno inta waxaa la geliyaa 3 number amba 3 ID. bacdama programkan uu yahay program American wuxuu ku saleysan yahay xisaabaadka inta badan nidaamkooda oo America ayuu ku saleysan yahay.
anaga marka ID-gan maahan marka ID anaga hadda aan gelinayno. Intaa wixii ka dambeeya waxaan imaanaynaa qaybta website-ka. Haddii uu jiro website-ka ayaan ku qoraynaa. Email haddii uu jiro, emailka ayaan gelinaynaa. Emailkeena wuxuu noqonayaa marka bafo12@gmail.com ayuu noqonayaa. Sida caadiga informationka wixii aad heli kartid waa gelinaysaa, wixii aadan heli karinna waa iskaga tegaysaa. Intaa wixii ka dambeeya next ayaan leenahay. qaybtan wuxuu uga hadlayaa qaabka chart of account-ga uu noqonayo. Haddii aad taqaanid programkan isticmaalkiisa isla markaasna aad u baahan tahay chart of account-ga adiga in aad samaysatid, waxaa isticmaalaysaa amarka ah build your own chart of account. laakiin waxaa lagu raacsiiyey waa inaad tahay qof xisaabiye amba qof aqoontiisa aad u sarreeya si oo u sameeyo chart of account-ga. bacdama anaga aan rabno in aan wax yaroo fudud aan ka qaadano, waxaan isticmaali doonaa mid ku diyaarsan meesha ayaan qaadan doonaa. haddii u baahan tahay marka qaabka loogu dhisay chart of account-ga bistriga gudihiisa, dabcan waxaa imaan doontaa haddii la yiraahdo xarunta halkaas ayaan waxaan ku bixiyaa qaabkii chart of account-ga loogu sameyn lahay. intaa wixii ka dambeeya next ayaan leenahay. inta wuxuuna siinaya marka chart of account dhisan ayuuna siinaya. chart of account sida caadiga waa liis ay ku diyaarsan yihiin shirkadda akoonadeeda amba akoonada la rabo in loo isticmaalo markii transactionska la diiwaan gelinayo amba la journal garaynayo. waxaan qaadan doonaa haddii la yiraahdo service ayaan qaadan doonaa ayadoo halkaas ay ku jiraan chart of account kala duwan oo mid walba markay aad ku dhifatid waxaa arkaysaa chart of account gaar ayaa arkaysaa. marka company-ga rabnay inaan ka shaqaysiino waxaan noqon doonaa haddii la yiraahdo service company. intaa wax ka dambeeya next ayaan leenahay. inta waxaa ku jira marka in aan ka jawaabno accounting method-ka aan isticmaalayna amba accounting basis-ka wax loo yaqaano. sida caadiga meeshan waxaan kusoo qaadanayaa laba nuuc amba laba oo ah accrual iyo cash. mararka qaarkood waxaa jira qayb saddexaad oo loo yaqaano hybrid system. kan qaadan doona wuxuu noqon doonaa haddii la yiraahdo accrual-ka sida caadiga ah wuxuu ku salaysan yahay income and expense recognition, macnaha sidii loo aqoonsan lahay dakhliga shirkadda soo galayo iyo waqtiga la aqoonsanayo iyo qarashka shirkadda ka baxayo iyo waqtiga la aqoonsanayo. bacdama accrual-ka uu yahay midka waafaqsan gaabka amba general accepted accounting principle-ka asaga ayaan qaadan doonaa haddii la yiraahdo. intaa wixii ka dambeeya next ayaan leenahay. sectionkan waxa uu ka hadlayaa qaabka loo boost gareynayo dhacdada markaa journal garaysid. inta laba qaab ayaa ku yaal. mid waxaa loo yaqaanaa real time, midna waxaa loo yaqaanaa batch. real time-ka wuxuu sameynayaa dhacdada markaa journal garaysid oo aad save garaysid automatically hore ayuu boosting-ka sameynayaa. boosting-kana waa habka looga qaadayo dhacdooyinka journal-ka isla markaasna loo geenayo ledger-ka amba akoonada ku yaala ledger-ka buuggaas. sida caadiga ah real time-ka ayaa wuxuu noqonayaa midka aan qaadanayo. sidoo kale waxaa jira batch-kana wuxuu sameeyaa wuu isku wada aruurinaya dhacdooyinka, hadhow ayaa waxaad u sameynaysaa si manual ah amar ku diyaarsan ayaa jiro bistriga markaasoo kaa caawinaya marka inaad boosting-ka samaysid. batch-ka wuu isku aruurinaya, real time-kana isla markaa save garaysid ayuu ledger-ka geenayaa. aniga waxaan qaadan doonaa haddii la yiraahdo real time-ka. intaa wixii ka dambeeya next ayaan leenahay. accounting-ka amba xisaabaadka shirkadda waqtiga ay bilaabayso sida caadiga laba nooc ayaa jiro. mid waafaqsan calendarka oo January ka bilaabanaya ilaa December, iyo waxaa jira midaan waafaqsaneyn oo ka bilaabanaya bisha xisaabaadka shirkadda ay ka bilaabanayso. inta badan xisaabaadka ay Soomaalida ay qabto qaasatan magaalada Muqdisho kama bilowdo January, December-na kuma dhamaado oo wuxuu ka bilaabanayaa laga yaabaa February, March, April, December meelahaas inuu ka bilowdo ayaa macquul ah. marka haddii uu ka bilaabanayo bilaha dhexda amba January uusan ka bilaabanaynin waxaa ku qasban tahay inaad amarkan isticmaashid isla markaasna aad u sheegtid bisha oo xisaabta aad ka bilaabaysid si hadhow programka marka xisaabta xiraysid oo u soo wareegsado 12 bilood. bacdama aan rabna marka in aan si yaroo fudud aan u tusaaleyno anaga waxaan leenahay xisaabteena wuxuu ka bilaabanayaa January wuxuuna ku eg yahay December. intaa wixii ka dambeeya next ayaan leenahay. waxaan u sheegaynaa marka January inuu ka bilaabanayo 2017 even though xisaabteeda aan geli doono haddii la yiraahdo dhacdooyinka markaan bilaabo bisha March oo ah bisha hadda aan taaganahay. intaa wixii ka dambeeya next ayaan leenahay. saa ujeeda marka waa ku guuleysanay inaan information-kan soo gelino. intaa wixii ka dambeeya finish ayaan leenahay. wuxuu bilaabayaa marka sida caadiga ah process-kiisa inuu qabsado inuu company-ga profile-kiisa oo programka gudihiisa uu ku abuuro. waxyaraan siinayna Janice waxay ku xiran tahay hadba computer-kaaga sida uu dhaqsigiisa uu badan yahay. computer-kaaga hadduu fast yahay isla markiiba hore process-ka uu marsiinaya. haddii uusan ahayn fast xoogaa waqti ayaa u baahan tahay inaad qaadatid.
wuxuu soo tuurayaa wax loo yaqaano setup guide oo ah sidii aad xisaabaadka aad u samayn lahayd meel uu kaaga caawinayo amba daaqad kaa caawinayso. waxaan leenahay marka daaqadan waa iska xiraynaa bacdama anaga aan isleenahay xoogaa waa taqaanaan programka oo waxaa sameynaysaan idinka ayaa og. qaybtan sare haddaa fiirisid waxaa noogu yaal company hadda aan soo abuurno oo ah Bafo company, programka magaciisa iyo productiga amba qaabka aan nooca aan ka isticmaalayno. inta waxaa noogu yaala menuiska oo hore aan uga soo sheekeeyey oo aan qaybo ka mid ah aan isticmaali doono haddii la yiraahdo inta aan ku guda jirno barashada qaybtan yar ee aan ugu talagalnay inaan bishriga aan ku aragno. inta waxaa ku yaala centers kala duwan ayaa ku yaala. center walbaba saa hore kugu soo sheegay waxaa ku jiro icons amba buttono si gaar ah aad u isticmaali kartid. mid walbaba haddii aad riixdid waxaa soo galaya daaqadaas ayaa waxay noqonaysaa marka meesha informationka amba datada aad geli doontid haddii la yiraahdo. maanta intaas ayaan ku hakinaynaa. cashirada soo socda ayaan meesha kasii wadi doonaa haddii la yiraahdo. intaa cashir lamida ku kulmeen waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.